السلام عليكم كلانتي هبون داوديال idil ahaantiin baa waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 12aad ee taxanaheeni ayaan dar shakadana waxa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag qaybteena waxay ku bilaamaysaa sidan subaxnimadii dambe baa Cali Amuur ku soo jarmaaday gurigii asli joogtay waxaana asli loo sheegay in walaalkeed dibadda ku sugayo asli way ka baqanaysay manay doonayn in ay ka hor timaado Cali Amuur ay u haysatay inay godob ka gashay wajigana ka fiiqday hase yeeshee jacaylkii walaalkeed ay u qabtay baa ka xoog badiyay degdeg bayna u soo oroday hab ayaa leysisiiyay asli waxay ka dul barooratay Cali Amuur sidii isagoo awood u leh inuu dhibaatada haysata ka dul qaadi karo asli waxay Cali Amuur uga sheekaysay sidii ay uurka u yeelatay qaxarkii gaaray iyo wixii ay ugu dambaystii cadaawe ay kala kulantay Cali Amuur wuxuu yiri markuu asli dhageystay walaal asli waxaas oo dhan adaa isu geystay meeqa jeer baan ku waashay oo ku yiri rag waa durwaana yurbaa la iskaga dhaxaa hadda se wixii dhacay waa dhaceen ha isu dhiibin waxyeelada ha rajo dhigin hana ka quusan nolosha waxaa tahay gabar da'yar mustaqbalkaagana dib waad u dhisan kartaa walaal asli waxaan maqlay in aadan hal bil dugsi aadin waa in aadan waxbarashadaada joojin iyada wax kasta ka muhiimsane fasalka 8aad 3 bilood oo qura ayaa kaaga hadhay asli oo dadka kale ka shiixi jirtay Cali Amuur si laab xaaran bay ula sheekaysatay walaal Cali sidee baan anoo uur leh dugsiga u dhiganaya soo gabdhuhu idaayadeen maayaan bay tiri asli maxaa kaaga jira caydu ma jirkaaga galaysaa mise cad bay ka jaraysaa si aad dantaada u gaadhid waa inaad wax kasta oo kugu yimaada u dulqaadataa buu yiri Cali Amuur wuxuuna u sheegay in uu la hadlaayo maamulaha iyo macallimiinta dugsiga macallin jaamac iyadana waxa uu ku waanshay in ay dadaasho asli aad bay ugu adkay in ay dhex gasho gabdhihii ay tiqiin ee hadalka iyo xanta badnaa inkastoo ay jeclayd in ay ka xijaabnaato bulshada misana way garwaaqsatay waanadii walaalkeed asli oo 16 jir ahayd dhibtii ay mudatay awgeed waxaa soo baxay labadii dhafoor waxaana qofkii arkaa uu moodayay dhow iyo 30 jir Cali Amuur galabnimadii asli wuxuu u soo kaxeeyay bacadlaha si uu dhar ugu gado markii Cali Amuur iyo asli ay hormarayeen baarmajoor baa waxa isha ku dhuuftay in la yiraahdo Fari oo ay reer aw jaamac daris yihiin markaasuu intuu koobkii shaaha ahaa ee uu cabayay dhigay ku soo jeestay dallintii baarka hor fadhiday intuu asli iyo Cali farta ugu fiiqay ku yiri gabadha wiilka la socota ma u jeeda waxa la yiraahdaa asli aw jaamac waxayna leedahay uur aan cidna lahayn wiilka la socdaana waa walaalkeed Fari oo hadalkiisii sii wata baa yiri Allah hadii aad ogaan lahaydeen siday gabadhaasi u eeday badnayd inaan Fari ag fadhiyay baa yiri oo walaalkeed soo ma aha mid xishoonaya maxaa daba galiyay muusiga haro Fari baa hadalkii boobay oo yiri raacid aan raaco iska daayay walaashay hadii ay uur xaraan ah yeelato qudhan ka goyn lahaa Fari iyo kooxdiisii muddo dheer bay baarka fadhiyeen mana ka dhicin oo ma qabin shaqo aan ahayn inay gabdhihii baarka soo hormara xantaan oo aflagaadeeyaan markii magaaladii la dhex yimid baa Cali Amuur wuxuu arkay asli oo dib u haraysa oo hadba jaanta ka goosanaysa markaasuu ku yiri abbaay asli maxaa kugu dhacay waadiga iga haray aboowe cabaariga hore waa ku soo daba soconayaaye yaan dadku igu ka arkineen bay asli ku tiri Cali Amuur aad iyo aad weereygaas uga danqaday ilmaana indhihiisii ku soo joogsatay markaasuu intuu garabka gacanta ka saaray oo la soo dhaqaaqay ku yiri walaal asli waan ka xumahay maan malaynayn in moraalkaagu ilaa heer ka gaarsiisan yahay iska saar uqdada aniga sidii baad ii tahay walaashay aan jecelahay baad tahay bini'aadamka waxba igama gelin waxay doonaan ha ku hadlaan waan ku ogahay nin iiga ka aqoon roon ma leh in aadan ahayn gabar xun ee amarku isaga ka yimid asli walaal iska saar fakarka iyo calool xumada cidna dambi kamaad galineen markii afar iridood la dhex yimi asli garbasaartii bay jiq isku siisay labadii indhood oo qura ayayna muujisay hoos ayayna u hogatay sidii gorayo gabal u dhacay iyadoo diidaneed in la arko ama ay wax aragto Cali Amuur markii uu soo arratiray buu asli gurigii Faadumo ku soo ceshay waxayna labadoodu isku darsadeen markii ay galeen sheekooyin ku saabsan taariikhdii ilmanimadoodii asli markii ugu horeysay bay qososhay muddo dhowr bilood ah
cali amuur imaatinkiisii wax weyn buu ka taray sare u qaadidda niyadda iyo yididiilada asli. walaal asli nabadgelyo, berri baan kuu imanayaa intuu yidhi buu cali amuur iridka ka baxay. markaa kadib asli oo rajo adduunye soo gashay baa hoos ka tiri, ilaahu walaalkay cali amuur ha iga qaadin, wax ii naxariista isagaan arkee. cali amuur maalintii dambe buu ku soo noqday asli, wuxuuna u sheegay inuu kala hadlay maamulihii dugsiga, wuxuuna u keenay dhammaan bugaagtii ay u baahnayd, wuxuuna ku adkeeyey in ay barato duruusta oo bilowdo, isagoo u sheegay inuu isla berrito dhoofi doono haddii uu baabuur helo. abbowe cali mahadsanid, weligay ilaabi maayo ixsaankaad ii samaysay bay tiri asli. laa shukra cala alwaajib, laysagama mahadnaqo gudashada waajibka, cali amuur baa ugu jawaabay walaashiis. cali amuur subaxii dambe aroorteedii ayuu dhoofay, hase yeeshee habeennimadii ilaa saqdii dhexe wuxuu la joogay asli, wuxuuna u sheegay inuu kala ballamay dukaan nin saaxiibkiis ahi leeyahay, wax alla wuxuu awoodana uu u soo diri doono. asli oo fulinaysa dardaarankii walaalkeed waxay isla maalintiiba soo aaday dugsigii, oo maamulihii iyo macallimiintii si fiican ugu soo dhoweeyeen. inkastoo sheekadeeda ay maqleen ardayda macallin jaamac badidoodu, haddana asli may aqoonin. sidaa darteed markay maqleen imaanshaha asli baa cunug kasta wuxuu doonay in uu arko wejigeeda. intaasi kadib maxaa dhacay? la soco daawade qaybta inoo xigta qaybtan maanta. sheekadanna waxaa qoray Dr. Cabdillaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag.